degmada Walaweyn waxaa si tartiib ah ugu soo noqonaya dadkii ka qaxay colaadii ka dhacday inkastoo aysan dad badan ku soo noqonin taasi oo lagu soo weeyay inaan wali aan la gaarin heshiiska madambeys ah oo la kala dhexdhigay beelihii walaalaha ahaa ee ku dagaalamay deegaanka dadka soo noqonaya ayaa waxaa u badan kuwii u qaxay meelaha u dhow degmada Walaweyn wali kuwii u qaxay Muqdisho Afgooye ayaana wali soo noqon waxaa yar aaminaada dadka wali waxay ka dhursugayaan meesha ay ku dambeyn doonto colaadan waxaana wali ku kala dhex jira ciidamada dawladda oo waqti kasta rondeynaya inkastoo aan wali lees horkeenin odayaasha labadii beelood ee dagaalamay heshiis buuxana aan la gaarin haddana Walaweyn waxaa ka muuqda saansaan nabadeed ciidamada militariga Soomaaliya guutada 7aad qaybtooda 6aad ayaa la wareegay amniga guud ee degmada waxayna saldhig ka dhigteen xarunta maamulka degmada Walaweyn guddiga loo soo xil saaray xaqiiq raadinta iyo xalinta dagaalkii ka dhacay Walaweyn ayaa ku guuleystay inay xabad joojin dhex dhigaan labadii beel ee dagaalamay waxaa lagu jiraa xilli roobaad degmada Walaweyn waxaa ka curtay roobka guga waxaa adag dadku inay ku dhiiradaan beerista beeraha cabsi jirta awgeed sanadkii hore beeraleyda degmada Walaweyn waxa uu ahaa sanad barwaaqo ah oo ay u baxeen dalagyo kala duwan suuqyada kala duwan ee degmada Walaweyn inkastoo dagaalku uu ku yeeshay saameyn xoogan haddana waxaa dib loo furay goobihii ganacsiga dukaamada ayaa si caadi ah u shaqeynaya inkastoo la dareemayo sicir barar uu sababay COVID-19 dagaalka ka hor iskuulada iyo goobaha guud ee waxbarashada degmada Walaweyn ayaa la xiray sabab la xiriirta dhaqangelinta amarkii ka soo baxay dawladda dhexe ee Soomaaliya kaasi oo ahaa in la xiro goobaha waxbarashada iyo meelaha dadku ay iskugu yimaadaan wali ardayda degmada Walaweyn ayaa ku jira fasaxa uu sababay COVID-19 dukaamada degmada Walaweyn ee lagu iibiyo quutul daruuriga ayaa waxaa ka jira ciriiri fara badan dadka ayaa u diyaar garoobaya bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan Mahad Axmed Cali telefishinka RTN degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose